munaasabadan harima sharafeedka ay goobjoog ka ahaayeen haldoorka labeenta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada koonfurta Hargeysa ee lagu qabtay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa lagu casuumay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo ay wehelinayaan ku-xigeenada koobaad iyo labaad iyo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye wasiiro agaasimayaal iyo xubno kale oo miisaan leh. Munaasabadaasi ayaa lagu cadeeyay taageerada buuxda ay la garab yihiin murashax Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici salaadiinta odayaasha iyo aqoon-yahanka ka soo jeeda ardaygaasi waxaana hadaladoodii hal ka mid ahaa gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Ismaaciil Cige wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukusi ayaa labadooduba bogaadiyay ardaygan dan wadaago taageerada iyo isku duumida ay muujiyeen. ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweynaha xisbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay taageeradooda waxaanu xusay inay xisbi ahaan taageero weyn ka rajeynayaan deegaanadaasi koonfurta Hargeysa. عبد الكريم سعيد صالح هون كيبل TV هرقيسة.